أنا waxaan qabaa dadka samaroonkii dad wanaagsan weeye oo waxyaabaha qaarkood aad uga xaragoodo saqajaanka aad u aqoon ayaan ku bartay oo la igu soo koriyay ilaa awowgaysa matar dheer laakiin dadka samaroonka waxa haystaa waxa weeye awood la'aan power goor walba ay martay yihiin goor walba kuwa yaryar ee halkaa jooga inay da'deena ku soo gaadhaan iyagoo oo qoodaya powerka halka lagu qaybsanayo annagana wax nasiiya wax noo reeba inay noqdaan waa in dagaalkeena maanta dagaalkaygu maanta taagan yahay waa yahay isagoo oo samaroon curad u ah oo haddana aqoon yahan ah oo uguna da' weyn war ma nin gudub laga galaa ilaahay baad ku dhaarsheeyay su'aashu waxay tahay haddaba aniga xuquuqdayda ninka ii suurida waa intee waa kuma kaasay ii suuridaya aniga ubadkayga ku suurida kaasay ii suuridaya soo markaysid ta koowaad ee madaxweynaha lagu ridaynaa Muuse Bixi Cabdi inagoo sidii gobta u hadlayna oo abaalka gudayna oo rajana ka qabno wax ka badan noo qabto baasinayna كاللبادنا حقوق ذينا نكو دودين سينينا كاللعبة توصارينا سماها عاديقو وحتا هايه لا عنيقو وحنا هايه لا رجيقو وحمد سماتا اليوم أبيقو وضاه لا dhammaan gaarisa waxay leedahay waxaan nahay hilaac ninka diidiya nin doodaba gaarisa dhammaan waa hilaac ku hilaac diida iyo ku doona hilaac wuu socday wuu tagay hoggaanka u sarreeya urur siyaasadeedka hilaac ay hogaaminayaan guddoomiyaha ururkaasi iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ayaa safar wacyigelina ku tegay degmooyinka Baki, Lughaye iyo Boon deegaanadaas oo ay ka mid yihiin deegaanada Baki, Gargaara, Gaarisa, Fadhixun, Qolujeed iyo deegaano kale oo ka tirsan degmooyinkaasi. ugu horreyna dadka deegaanada ayaa halkaasi ku soo dhaweeyay isla markaana muujiyay taageerada baaxadda leh ee la garab joogaan urur siyaasadeedka hilaac waxayna halkaasi ka jeediyeen hadallo soo dhaweyn u badnaa. anigu waxaan aaminsanahay gadabuursigu in badan bay taahayeen way waxbaa naga maqan tahay qarankana dhibaatooyin badan baa oo soo jiitamay baa jira markii buurta gacan libaax la fuulay anigu gaar ahaan waxaan aaminsanahay in ninka buurta laga fuulay gacan libaax inuu Axmed Ismaaciil Samatar yahay baan aaminsanahay maskaxdayda ku jirta waan goor kasta waan la ooyaa gadabuur soo dhani kuwa aqoonyahanka waan baaray maba hayaanba fikirka ninkan buurta gacan libaax laga fuulay inuu jaranjarada soo fuulo muusana ma ahayn xisbigan kulmiye xilliga jirayna ma ahayn Professor Axmed Ismaaciil Samatar kan hilaac wata ee dadka aakhira lagu aasay wax u raba ee Soomaaliya intan kale iyadna inta caanaya in waxbarasho la'aan biyo la'aan busaarad ay hayso wax u raadinaya ee aqoontu ka dhex iftiimaysa geeska Afrika oo dhan hadii loo dhiibo malab iyo biscuit ka dhigi lahaa aqoontiisa iyo cilmigiisa ku jira ee sida loo isku waafajiyay yaqaana maxay ahayd siyaasadda oo maamulkiisa iyo dhaqaalihii oo ku adduunyada lagu maamulayo dadku ku noolaanayeen sida la isku xiriiriyo bartay ku soo shaqeeyay adduunka la soo jaan qaaday wax ka qabtay warshad weeyi soo saarta Axmed waa warshad soo saarta ummadda dalka Mareykanka u dhaqaalaha badan joogta ee wax bartay ee dhaqaalaha iyo siyaasadda Mareykanka dadka fariisiya
meel una dhaqdhaqaaqin dhiga aqoon ku dhigay aqoon-yahankaa warshada soo saartaa waa Axmed Ismaaciil Samatariya in la mida oo fara ku tirisa weeyi nin looga walwalo inuu maanta Soomaaliland nooleeyo ma aha anu qabiil hoose iyo waxaan ku rafan maayo inta walaalihii lugaha qabatayna taariikhda qori doonta taariikhda ayaa qori doonta anigu kuwa iyaga waxaan leeyahay waa saqiir siyaasadeed weey waa kuwa maxay ahayd aqal sheegta iyagana la yiraahdo niyo hadla wax annaga wax yarna meel lagu ballamin doona idinkuna hadla la yiraahdo meel uun istaaga hadla uun muraayada uun cisho walba taagan kuwaasina waa dhaqan saqiiray uun iyaguna dhaqankii maxay ahayd Soomaalidu dhaqankay ku dhisnaan jirtay waa dhaqankii oo saqiiray oo dadkii bay madaxa isku wada gelinayaan oo hunu hoose wax aan macna lahayn bay timahay dadka isku xiraan laba waxan de Soomaaliland loo kala bixilayay goor walba dhiiguun la qulqulaya dhaqankana oo aabaa saqiiray siyaasadda dhex galayday ayaa oo aabaa marka kuwaana iyagana waxaan leeyahay ilaahay ha idin sakhro Soomaaliland waxaan leeyahay waar horumarka u heeliya waar hilaac u heeliya waar dadka aqoon-yahanka ilaahay dibadaha inoo keenay inuu halkan ka shaqaysto uma iman waar yaanu ina wareerin ina yaro walaalkeena ama meelahan ka dooranay oo anagu ku dooranay geeyeenahay meesha maantana kolba nooc oo kol sidii digaaga oo kol sidii jiirka inuu caymada cisho walba boor soo noqonaya waxaan leeyahay waa weel ninku hadduu nin wax bartay yahay hadduu cabanayna si maskax leh ayuu cawdaa kuwan meesha la jooga ma garanaysaa kol isaaq buu xaganaya oo caaya kol bulsigu ku soo noqonaya oo balaayo ku afuufaya saamigii baa leynoo diiday kan kana leynoo diiday maxay ahayd war inaad qoriga qaadato rasaasna aad soo badsato maxaafadahan baad ku bilowdaa agtaada waxay cuqdad bay ka buuxinayaan waa yaabaniyo habeenkan haddana dib u cawdbilaysanaysaa oo leedahay xaafadii baad ku noqonaysaa marka ilaahay waxaan dadka u barayaa inuu ilaahay dadka iswaafajiyo qowlkooga iyo waxqabadkooga war waxaan leeyahay aqoontii ilaahay noo keenay war hilaac maanta lagu tuntunsado war kulmiyana raaciyan iyo wax badan buu soo qabtay ha ka reebina hadaad ka reebtaan anu waxba sidii rag badan waxba inkaartay maaye qalbiga iyo caloosh ha kala duwane labada xisbi ha kala reebina walaalahayo aniga oo la hadlaya qaranka Soomaaliland laana hadlaya khaasatan gobolka Awdal iyo Salad waxa weeyi maanta lama dooranayo golo baarlamaan lamana dooranayo golo deegaan waxa la dooranaya waa qaranka Soomaaliland aniga dad iska reebi waxa weeyi anigu waxaan ahay nin Maxamed ina ka cali Xuseen ee wata barwaaqo ina adeerkayga labaad ma dhalay isagu waa ina Xuseen Nuur Beegsi anna waxa la dhahay Cabdiraxmaan Muuse Coofle aabii baan ay marka la yiraahdo iyo arag iyo talo wali ma naaris aragna waxaan u sheegayaa degmada Baki qaran ahaan iyo gobol ahaanba waxaan u sheegayaa dadweynuhu inay qaataan aqoontooda hilaa Axmed Professorka Axmed Siciid Samatar illa qaataan gacantiisa in codka iyo xooga iyo hadalka intaba loo huro war waxa weey in dhalaan ku jira mayno fikirro waxay nagu jira laynaga dhaadhiciye wax reera loo doorto anigu hal iyo jeer waxaan radaa war qof la doontaan doorane ninkan marka hore bay doortay la cararay meel inaga dhigan lama dhigay waxa la doortaa cid iyadu qooqday ee cid lagu isma qooqdo waxa ku inaa ka abi cabdi good leeyahay doorashadii golaha baarlamaanka ee 10kii hore 2005 reerka waxaan u raacay gal ciidan dooran 10 jeer markuu neeriyay waxa noo keenay Allah iyo raxmi xamid inakii fadeexad wali adduunyada qaranna fadeexad kama fidin kamana u fidin shakhsina kama fidin xusbina kama u fidin ha ahsaabtan maxaa loo furay
inay yaabihii inay labadooda fikir ku kala raacaan ilaahay hayna karsiiyo tasanina ku socono war waxa leeyahay burufuseerka inoo sida albaabkii laga galay Soomaaliland dibadda ka joogay Soomaaliland in kuma jiro anigu waxbay hadal dhamayn maaye hedelka ugu badan ma ka jiray Soomaaliland khaasatan qorigii nabadgelyada qoladii qaaday degmada Baki 30 kiiloomitir u horeeyay waxaan ka qoranay qofka saddexaad ilaa haddana waxaan tukubiyaa nabad iyo wanaagsan meel loogu marla weyna ka mishaar waxa adiray cid taqaan la yaqaanana meey war nolol nabad baa naas la nugale aqoon baale aqooni haday ku wada weydo indhalaan iyo reebelnimo kuma wadaso totalba kama hela aan qolo wax la dhahay waxaan ka helaa nolosha hiigsiga nolosha ummadda waan gudoonay bay ku dhan tahay waftigu waxa uu noo keenay warbixinaha waan gudoonay inakii gooraya sheegay waxay noo yeelaan waxa tahay inaan fulino ila wax baan galay inaan fulino ayuun bay tahay professorka waxa ka dhageysan jiray idaacadaha BBC iyo VOA iyo waxa ka dhageysan jiray aqoontii Soomaaliya waa hadde halkan hadii uu yimidna waxaan moodayay sidaas ka badan loogu baahan yahay in wax laga sheego aniga nasib daraabay ku tahay waxisbugu abuuray waxa la yiraahdo waxa weyn war mood baan dhafaynaa mood baan dhaaf maanta maadaama ay noo yimid loona baahna oo Soomaaliya u baahnay Soomaaliland u baahnay oo inagu baahnayn xisbiga uu iftiimiyay waan qaadanay waan taageeraynaa si buuxda وحسب Somaliland وحسب Samaroona وحسب Awdala saynu baraysi Soomaaliya taswaata tariyo wax qabadka dawladda way jirtaa deeb wasiirku wax badan oo noo keenay dawladda way jirtaa barasha kamida deynba kamida lama tiri karo waa wuxuu wasiiru ahaa abaal ma qabnaba waa wuxuu wasiiru ahaa badde imikana waan ka rabnaa wali laakiin codka uu noo keenay hadda ku beelino waxa wax qabadkiisa oo gaabin waxa weeyaan isaguna marjo ba ku dhacaya waxaan salaamayaa gudoomiyaha ururka Hilaac Professor Axmed Ismaaciil Samatar iyo wasiirka waxbarashada ee wafdiga ay hogaaminayaan aad iyo aad baan salaamayaa salaan kadib waxa weeyaan dhammaantiin wafdigiinaasi noo yimiday ee noo warramay marka u horeyso horta waan qaadanay arrinkaad noo waranteen waxaan dareensanayn buu ahaa waxaan aad iyo aad boqolkiiba boqol u dareensanayn buu ahaa oon ma garanaysaa niyadayada amba ku haynay amba aan ku guclaynayn waan la soconnaa Professor Axmed Ismaaciil Samatar aqoontii Somaliland inuu yahay gaar ahaan ree Awdal aqoontoodii iyo waxbarashadoodii kiyo maanta inagu Hilaac leeyahay anagoo ku dhiiran ayaan haddana dadku maqalay ya dee gudoomiyihii iyo tii aan ku dhiiranay ee u han weynayn dee dadka imika laga warramay wax fashiliyay unba hawshaas ayaa dadku waxay maqleen dee barasfarkii nimaanta hawshii iska casilay ani ahaan qaasan markaan ka hadlayo aad baan maalintii sidaa la lahaa ya aan uga naxay waayo himilaan markaa maanta himilaan hiigsanay markaa Hilaac markaa halkan maanta kuma dhalanayo taa ma isla garanay haddaba Hilaac dhowr arrimood baan rabaa halkan inaan ka taabto dadka dadyowga dega gobolada galbeedka in badan baa waxaad maqasheen waxaan qabnaa saluug ba'an ayaan Somaliland ka qabnaa awood qaybsiga mataqaana nagu yar saami qaybsi baan rabnaa kuraasta looma siino saddexda xisbi ee dalka qaranka maxay u taagan ee siyaasadda mar waliba hogaamiye kolba xisbi soo geestooda hoggaanka sare ururka ayaa hadallo mahadcelin iyo ballanqaad ah halkaasi uga jeediyey dadka deegaanadaasi ku dhaqan adduunyada waxa la isku hayaa ee dadna ay u noqdaan dad aan tirsanayn oo xaqoogu goor walba maqan yahay amba dee hambada laga tago looga tago waxa weeye awood waxa la yidhaha power waxa la yidhaha awood batu dhaqaale ha noqoto
amba tu siyaasadeed ha noqoto amba tu caafimaad ha noqoto amba tu iskuul ha noqoto dadka aan awood lahayn powerka aan qayb ku lahayn marka dambe waxay ku dambeeyaan uun baryo iyo calaacal iyo may ku dambeeyaan anu waxaan qabaa dadka samaroonkii dad wanaagsan weeye oo waxyaabaha qaarkood aada uga xaragoodo saqajaanka aada u aqoon ayaan anigu ku bartay oo laygu soo koriyey ilaa awowgeysa matar dheere laakiin dadka samaroonka waxaa haystaa waxa weeye awood la-aan power goor walba ay marta yihiin goor walba kuwa yaryar ee halkaa joogaa inay da'deena ku soo gaadhaan iyagoo oo quudaya powerka halka lagu qaybsanayo annagana waxna siiya wax noo reeba inay noqdaan waa inaan dagaalkeenna maanta dagaalkaygu maantu taagan yahay anigu da' baan joogaa kolka in badan oo halkan fadhida waan ka weyna soo hadda maad gal in la soo shaqaystana waan soo shaqaysto waktigii la nasanayay ayaan joogaa anigu soo hadda maad gal laakiin waxay ila noqotay aniga haddaan wax kale samayn waayo intii aan hadhay cimrigayga ka hadhay in ciilka tolkay haya aan wax ka qabto haddaad codka bixisaan uu soo baxo 3 amuuroodba ballan idin gelaya kow waxa weeye wixii xaq ah aad leedihiin kelmadduna waa xaq wixii xaq aad leedihiin eed imika haysataan inuu hilaac idinla ilaaliyo si waxaasi xaqaasu aanu idinka lumin amba aanu idinka baabin waa kow ta labaad waxa weeye wixii xaqa ee idinka maqan saamay qaybsi ha noqoto wasaaradaha dowladda lagu leeyahay ha noqoto baayac mushtariga ha noqoto development horumar wixii idin xaqa ee idinka maqanna hawsheedii in deg deg aynu u wada galno oo la soo dhiciyo dee oo la soo dhiciyo ta saddexaadna waxa weeye ilaa adduunyadu kulba way bedelmaysaa mustaqbalka waktiga soo socda in la ilaaliyo tolku xaqa uu leeyahay in la ilaaliyo oo sahanka la galo mustaqbalka xaqa lagu yeelan doono sahankeygii in imika la galo waa saddex anu mana arag intaan waddankan somaliland ku wareegayana ummaddaa kale ee waddanka la wadaago een anigu ka dhashay ya ma arag cid arrintaa wax ka qabto ma arag waxay ku odhanayaan dee xaqa iyagana nala doon dee waa taasi way wanaagsan tahay xaqa iyagana nala doon halka ummaddu ay ka abuurmaysaan marka waxa weeye qof walba xaqiisa in lala doono lala ilaaliyo ya mustaqbalka maxaan ku dhahay investmentka la sameeyo halkaa weeye ilaac waxaan u abuuro cududdaa inaan yeelano cududana ujeedadeedu ay tahay xaqa maqan in la soo dhiciyo xaqa la hayo la ilaaliyo ka mustaqbalku uu dhalayana sahankeygii la galo intaa haddaynu isla garano aan weliba waxaan idin leeyahay qolooyinka maxalcase halkan fadhiya waxaan idin leeyahay tolnimada iyo qabiilku anuu qabyaaladda waxaa la yidhaha ma jecli waan kama tagaa uma dhowaado laakiin tolnimadu dee waa jiirkii iyo dhiiggii iyo laftii wey aan waxaan idiin sheegayaa un sababta iyo macnaha ururkan hilaac wuxuu u yahay qaranka iyo wuxuu idinka idin yahay ururkan hilaac wuu ka wen yahay ururada kale la tartamaya ururkani wuxuu yahay qarannimada somalilan ururkani wuxuu yahay wadajirka somalilan ururkani wuxuu yahay isku haynta somalilan ururkani waa ururka soo celin kara qaybta bariya haddayna ka maqan marka ururkani ma aha mid caadiyo jas urure waa qarannimada wey hilaac iyo qarannimadii baa siman xaggeed ka soo gelaysaan haddaba idinku mid weeyaano waxa weeyaan iminka anigu weligay waan maray aaggan laakiin ruqi weligay ma arag yaana baray maxamed abiibo ooyaya laakiin idinka waxaan idiin sheegayaa professor axmed ismaaciil samater oo ugu aqoon badan soomaali idinkana dhashay markuu xisbiga ururkaa uu xisbi ka dhigo waxaan hubaa wax waloo doonaysaan inuu fulinayo markuu ururkaasi u soo wareego xisbi
waxa xisbiga wuxuu noqonayaa beerta laga abuuro dadka idin matalaya sida baarlamaanka sida golaha deegaanka ma aha un urur axmed wate wuxuu noqonayaa beer laga abuuro dadkii hogaamin lahaa qaranka intiina aqoonta leh intiina maaragtay damiirka leh dhammaan waxay ka noqonayaan member dadka baritoole hogaamin doona qaranka intiina kalena waxaa la sameynayaa iminka iskuul buu kulmiya bilaabay inta ka dhiman waxaa dhammayn doona hilaac ayaa annagaa dhammayn doona ilaa iyo secondary ama hadday ka furso wadina jaamacad laga dhigi doono halka waa yahay isagoo oo samaroon curad u ah oo haddana aqoon-yahan ah oo uguna da' weyn war ma nin gudub laga galaa ilaah baad ku dhaarsheeye su-aashu waxay tahay haddaba aniga xuquuqdayda ninka ii soo riday waa intee waa kuma kaasa ii soo ridaya aniga ubadkayga kuu soo ridaya kaasa u soo ridaya soo ma arkaysid madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland muuse biixi cabdi dood buu kula galay axmed meesha la yidhaahdo washington iyo new york bay ku wada galeen waxaa ujeeda iyo minnesota ku wada galeen doodii madaxweynuhu wuxuu ku yidhi war axmedow haddaad wax isku haysaan kaalay annaga waxaana dilay 3 noo isku beela ayaa tartamaya od maalin kasta weliba ula kaftamay siduu ii sheegay wuxuu ku yidhi adii allah xuseen marxuumkii cali khaliif gallayn soomaaliya la wada leeyahay war waday aan yeelanne kaalayo xisbi samaysay buu ku yidhi axmed wuu dhiirido xisbiga uu sameeyey lamuu gaban soo maaha walaal waa yahay madaxweyne markuu joogay boora muxuu yidhi markuu boora ma joogay muxuu yidhi soo saarta miidhkaa ilaahay baad ku dhaashay haddaba mid eega ninka maanta jooga wuxuu ka odhanaya hallay doorto idama maalin doorashan maraynaaye war iigu rida soo lama odhanayn isagu iigu rida mu yidhi iiguma odhan war soo doortay hilaac buu yidhi soo maahan maxaa lagala jeedaa markaa waxaa lagala jeedaa in dalkii oo la wada yeesho muuqaalkiisu samayso wuu iibsamaya dalkii baa iibsamaya ma kala yidhaahdo labadaa xisbina isaaq baa leh xisbigaana gadabuursi baa leh waana beelihii wada dhashay ee wada deganaan la yidhaahdo maxaa soo baxaya muuqaal qurux badan baa soo baxaya bili aadanka